السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن داوديال halkan waa janaalka Al-Xurriya News. waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door karoon wararka aan idinaahna xilligan. Filla Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay ku fashilantay sugitaanka amniga muwaadiniinta Turkiga ah ee dhismaha ka wada wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle oo cabasho ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo khilaaf siyaasadeed oo saddex geesood oo laga cabsi qabo in uu qarxo. Kulamo xal raadina oo ka bilowday magaalada Dhuusamareeb. Muuse Biixi oo maanta golaha wakiilada ka horjeedin doona khudbad la wada sugayay. Ciidamada dawladda oo Al-Shabaab kala wareegay deegaano hor leh. Guddiga doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug oo lagu dhawaaqayo. Wararka dibadda ee daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya khasaaro ka dhashay dibadbaxyo rabshado wata oo ka socda dalka Lubnaan iyo General Haftar oo horjoogsaday dhoofinta saliidda dalkaasi. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janaalka Al-Xurriya News. haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u heshid wararka warbixinada 24 saac halkan aanu soo gelino. ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilownay. Filla Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay ku fashilantay sugitaanka amniga muwaadiniinta Turkiga ah ee ku howlan dhismaha wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. taliyihii hore ee hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa ka hadlay qaraxyada joogtada ah ee Al-Shabaab ku weeraraan shaqaalaha dhisaya wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Sanbalolshe oo u waramay mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay tahay tan kaliya ee dhismo dhan waliba ah oo muuqda dalka ka fulisa. haddii ay dawladdu xakameyn weyso weerarada ku wajahan muwaadiniintaasi waxa ay tagi doontaa in uu hakado dhismaha wadadaasi dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. taliye Sanbalolshe waxa uu sheegay in Al-Shabaab mar waliba ay beegsanayaan cid kasta oo ay u arkaan in ay horumar ka wado dalka si caalamka ay uga niyad jabiyaan ka qayb qaadashada dib u dhiska dalkan burburka u ragaadiyay. Cabdullaahi Sanbalolshe ayaa sheegay in dawladda Turkiga hadaf fog ay ka leedahay dhismaha dalka dhul dheerna ay uga timid si fududna aysan uga niyad jabaynin dib u dhiska ay ka wado Soomaaliya, balse ay macquul tahay inaan dadka meesha lagu sii haynin haddii weeraradu sidan ay u sii socdaan sida uu hadalka u dhigay taliye Sanbalolshe. taliyihii hore ee NISA ayaa dawladda ugu baaqay in ay wax ka bedesho nidaamka sugidda amniga dalka isagoo kula taliyay in ay sameyso saddex qodob oo kala ah. 1 in Al-Shabaab caqiido lagula diriro. 2 in dagaalka lagu wajaho kacdoon shacab. 3 in hay'adaha ammaanka loo dhiibo dad aqoon u leh ciidamada dalka u dhimanayana xuquuq fiican la siiyo. ugu dambeyntii taliyihii hore ee NISA ayaa sheegay in ammaanka dalka aan lagu sugi karin in siyaasadda dalka sidan ay u sii cakirnaato, balse looga baahan yahay dawladdu in ay isbedel muuqda samayso. waxaan qabaa in Soomaalidu kulligeed shabaab meel ay uga soo wada jeesato, mana qabo in hadda dawladda jirta ay shabaab ka guuleysan karto, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay taliyihii hore ee nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Sanbalolshe. weli waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News. ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay. maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa cabasho ka ah dawladda federaalka Soomaaliya waxaana laga cabsi qabaa in khilaaf siyaasadeed oo saddex geesood ah in uu qarxo. xog ay heshay Al-Xurriya News ayaa sheegaysa in madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle Muqdisho ay u yimaadeen cabasho ka dhan ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. xogta aanu helayna ayaa sheegaysa in dhinacyadan Baydhabo ay iskaga wareysteen dhibaatooyinka ay ku qabaan lacagii ay ka heli jireen maamul goboleedyada ee loo marsiin jiray bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo wada shaqeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xilligan aad u liidata. sidoo kale dhinacyada ayaa ka cabanaya in aysan weli dhaqan gelin heshiisyo wada shaqeyneed oo dhaxmaray xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo labada maamul goboleed, kuwaasi oo ay ka mid yihiin fulinta mashaariic dhismo, shaqo abuur iyo in loo tababaro ciidamo iskugu jira daraawiish iyo boolis. wararka ayaa sheegaya in labada maamul oo ay ku soo food leedahay doorashada guud ee Hirshabelle iyo midda baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa isku afgartay in ka hor arrimahan cadaadis ay saaraan dawladda federaalka ee Soomaaliya si loo dhaqan geliyo heshiisyadii ay gaareen dhinacyada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. kulankoodii Baydhabo ayaa la sheegay in ay isku raaceen labada madaxweyne ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo maamulka Hirshabelle barnaamijyo horumarin oo iskugu jira mashaariic dhismo iyo shaqo abuur. haddii ay dawladdu fulin weysana ay cadeyn doonaan in xukuumadda ay diidan tahay wada shaqeynta maamulada Koonfur Galbeed
Hirshabelle iyo dowladda dhexe. Labadan maamul waa kuwa kaliya ee maamul goboleedyada la shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana la aaminsan yahay in hadda sidii hore aysan u wada shaqeynin ayna jiraan tabashooyin hoose oo xilligan u baahan in la xalliyo. Xubno ka tirsan Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa Al-Xurriya News u sheegay in la filayo in kulamo ay dhex maraan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo dhinac ah iyo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle si ay uga wada hadlaan xaaladaha xilligan taagan ee caqabadaha ku ah maamuladaasi. kulamo xal raadin ah ayaa ka bilowday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa saacadihii la soo dhaafay ka socday kulamo ku saabsan sidii xal loogu raadin lahaa khilaafka wali hareeyay dhismaha maamul goboleedka Galmudug. Guddoonka cusub ee baarlamaanka ayaa waxa uu kulamo la qaatay musharaxiinta madaxweynaha maamulka Galmudug, waxaana kulamadaasi looga hadlayay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka Galmudug iyo arrimaha madaxweynaha maamulka Galmudug ee Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Musharax Cabdi Dheere oo kamid ah musharaxiinta madaxweynaha kana qayb galaya kulanka ayaa sheegay in kulanka looga hadlay in doorashada soo socota ay noqoto mid xor iyo xalaal ah, sidoo kalena musharaxiinta waqti la siiyo. waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka hadleen qaladaad ka jira dhinaca doorashooyinka, isla markaana ay isla qaateen in xal laga gaaro arrimaha tabashada ah ee uu qabo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Maamulka Galmudug ayaa iminka wuxuu la daalaa-dhacayaa khilaafyo siyaasadeed oo kaga imaanaya dadka ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Wali waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. Ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay. Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta golaha wakiilada ee maamulkaasi ka horjeedin doona khudbad la wada sugayay. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta la filaya in khudbad sanadeedkiisa uu ka horjeediyo labada gole ee baarlamaanka Somaliland. Khudbad sanadeedka madaxweyne Biixi oo noqon doonta tii labaad ayaa ku soo beegmaysa waqti ay xaalad siyaasadeed wajahayso Somaliland, muran iyo dib u dhac uu ka jiro doorashooyinka golaha wakiilada, golaha deegaanka, khilaafka xisbiyada iyo xukuumadda, wadahadallada hakadka ku jira ee Soomaaliya iyo Somaliland iyo arrimo kale. Labada xisbi ee mucaaradda ee Somaliland ayaa shalay ilaa iyo maanta ku jira shirar ay uga arrinsanayaan khilaafka cirka isku sii shareeraya ee kala dhaxeeya xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Somaliland ayaa xilligan waxa ay wajahaysaa dhibaatooyin badan oo kaga imaanaya dhanka mucaaradka iyo siyaasadaha isdiidan ee ka jira deegaanada maamulka Somaliland, waxaana madaxweynaha la filayaa in uu kulamo la qaato xisbiyada siyaasadeed ee ka jira deegaanada Somaliland si looga arrinsado xaaladda guud ee Somaliland. wali waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. Ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal. Ciidamada dowladda ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaano hor leh. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Danab, ayaa waxaa la sheegay in ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Danab oo ay wehelinayaan kuwa daraawiishta Jubbaland ay howlgallo kula wareegeen deegaano u badan dhul hawd ah oo u dhow degmada Jamaame oo gobolka Jubbada Hoose ka tirsan, halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Idris Kuusow Sheekh Cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada deegaanada ay la wareegeen ay ka mid yihiin eegaanada Araare iyo Malaayey, halkaasi oo ay sheegeen in muddo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in ciidamadu ay ka warheleen in Al-Shabaab ay qorsheynayaan weeraro ka dhan ah, isla markaana howlgalkii ay sameeyeen ay ku soo qabteen waxyaabaha qarxa oo Al-Shabaab halkaasi ay ku diyaarinayeen. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray intii ay howlgallada socdeen in dagaal culus deegaanadaasi kula galeen dagaalyahanada Al-Shabaab, isla markaana ay ka dileen in ka badan 10 dagaalame sida uu hadalka u dhigay. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanada u dhadhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay wali howlgallo ka wadaan deegaanadaasi.
weli waxaad daawanaysaan wararka janaalka alxuriya news ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay qaybihii dhexe wararkeena ayaan isla soo gaarna markana guddiga doorashooyinka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta yeelanaya kulankoodii ugu horeeyay tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii guddoonka baarlamaanka ee maamulka galmudug kulanka ayaa waxa ay uga hadli doonaan arrimo dhowr ah waxaana xildhibaano ka tirsan galmudug ay sheegeen in maanta ay ku dhawaaqi doonaan guddiga doorashada madaxweynaha maamulka galmudug oo ay xildhibaanada dhexdooda iska soo xuli doonaan saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa dhuusamareeb ka socday kulamo xasaasi ah oo ay leeyihiin musharaxiinta madaxweynaha maamulka galmudug iyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi ku dhawaad ilaa iyo 7 musharax ayaa u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka galmudug waxaana musharaxiinta qaarkood ay walaac ka muujinayaan habka ay u socoto doorashada maamulka galmudug waxaana la filayaa xildhibaanadu in ay maanta ku dhawaaqaan guddiga doorashooyinka madaxweynaha maamulka galmudug markana akhbaaraadka dibadda qasaare ayaa ka dhashay dibadbaxyo rabshado wata oo ka socda dalka Lubnaan sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ka mid tahay caasimadda dalka Lubnaan waxa sii xoogeysanaya dibadbaxyo shacabka dalkaasi ay ku doonayaan isbedelo siyaasadeed oo ka duwan kuwa hadda jira ciidamada ammaanka oo isku dayaya in ay kala eriyaan dibadbaxayaasha ayaa adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyo kulul inta la xaqiijiyay 12 ruux ayaa dhaawac culus ay ka soo gaareen fagaarayaasha isu soo baxyada ay ka socdaan dawladda ayaa lagu eedeeyay in ay awood u adeegsanayso dadka shacabka ah afayeen u hadlay dawladda ayaa sheegay in internetka iyo korontada dalka oo dhan la jari doono haddii shacabku aysan dib ugu laaban guryahooda ugu dambeyntiina General Haftar ayaa hor joogsaday dhoofinta saliidda ciidamada uu hogaamiyay General Khalifa Haftar oo ah nin mucaarad ku ah dawladda oo caalamka aqoonsaday ayaa hor joogsaday dhoofinta saliidda dalkaasi talaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli lagu wado in maanta uu shir dib u heshiisiineed dalka Jarmalka uga furmo kooxaha ku diriraya dalka Liibiya General Haftar oo ka qayb galaya shirkaasi ayaa joojiyay shidaalka laga dhoofiyo dekadaha uu gacanta ku hayo generaalka ayaa ka qayb galaya shirkaasi maanta lagu wado in uu ka furmo dalka Jarmalka waxaana looga hadli doonaa arrimo dhowr ah oo ku saabsan dagaalada iyo dhibaatooyinka ka socda dalka Liibiya guud ahaan daawadayaal wararkii aad kala socoteen janaalka alxuriya news xilligan waa naga inta haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambalaalkana furo si aad u heshid wararka warbixinada 24 saac halkan aanu soo gelino